kulan wanaagsan daawadayaal kani waa janalka isha wararka kuna soo dhawaada wararka galabnimo waa galab tiraada taariikhdan ay ku beegantahay 20ka bisha September sanadka 2022 wararka galabnimo qodobada ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya al-shabaab oo afka ciidan loo diray iyo meedad badan oo ay ka qaateen deegaano dhowr ah oo maanta ay kala wareegeen ciidanka dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kooxaha macwiisleyda ah dhowr deegaan oo ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ay ciidamada dawladda gaareen madaxda Hirshabeelle iyo Galmudug oo xirtay tuutaha ciidamada si ay ugu biiraan dagaalka mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka baxay Muqdisho oo kala najahaystay gobolada Galgaduud iyo Hiiraan qaar kulamo ka bilaabay deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud ayaad wararkeena ku daawan doontaan qodobada kale aad wararkeena ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya xukuumadda Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay howlgallada ka soconaya gobolka Hiiraan faahfaahinayaan idiheena madaxweyne Xasan Sheekh oo kulamo qarsoodiyaha la sheegay inuu Washington kula yeeshay mas'uuliyiin sirdoon ah oo ka socota Israa'iil faahfaahinaya daawan doontaan qodobada kale aad maqli doontaan waxa kamid noqonaya deegaanada koonfur galbeed oo ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaq ka dhan ah ururka al-shabaab macluumaad la xiriira ayaa daawan doontaan iyo abaabul xoog leh oo ciidan oo ka soconaya magaalada Muqdisho waxa uu abaabulkaasi yahay meel ka mid ah xaafadaha Muqdisho oo ciidamo fara badan lagu arkayo xaaladda ay la xiriirto ciidamadaasi ayaa daawan doontaan faafahinta qodobadaasi inta ka horeysa waxaan idinka dalbanaynaa haddii aad tahay qof nagu cusub fadlan ugu soo biir haddii aad hore noola joogtana fadlan nala sii joog si aan u helno saaxiibadeedinka oo kale ah waxa sidoo kale idinka codsanaynaa in warbixinteenan aad la gareysaan si aan u helno dad kale mahadsanidin faafahinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo wali howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab ka wada deegaanada ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa maanta la wareegay deegaanada ka kala tirsan goboladaasi oo ay hore u joogeen ururka al-shabaab taliyaha ururka 8aad iyo guutada 18aad ee ciidamada Gorgor Captain Maxamed Xirsi oo horkacay howlgalka koowaad ayaa la sheegay in ciidamada dawladda oo kaashanaya kooxaha deegaanka inay la wareegeen deegaanka lagu magacaabo Booco oo qiyaastii 50 kiiloomitir dhinaca koonfurka ka beegan magaalada Beledweyne halkaas oo muddo dheer fariisin u ahayd ururka al-shabaab lana sheegay in maxkamadaha ay ugu furnaayeen kuwaas oo ay dacwado ugu qaadi jireen dadka deegaanka iyo guud ahaan gobolka Hiiraan taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo Yuusuf Raage ayaa isna sheegay in al-shabaab ay isaga tageen deegaanka kadib markii ay ka war heleen inay ku soo wajahan yihiin ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka oo hore meelo badan kala wareegay ururkaasi taliyaha ciidamada xoogga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka dawladda ay la wareegeen deegaanka Sinedhaqo oo hoostaga ah degmada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay taliye Odawa ayaa tilmaamay in howlgalladaasi ay u socdaan sida loogu talagalay isla markaana ciidamada qalabka sida ay ka go'an tahay iyaga oo kaashanaya shacabkooda iyo in guud ahaan dalka laga saaro ururka al-shabaab tan iyo markii ciidanka dawladda iyo dadka isabaabulay howlgallo ka bilaabeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan bartamaha Soomaaliya waxay kula wareegeen deegaano iyo degmooyin ku yaala gobolada Hiiraan iyo Galgaduud iyo qaybo kamid ah gobolka Mudug oo xoogooda uu ka soconayo abaabulka ka dhanka ah ururka al-shabaab kaas oo kacdoon xoogan wajahaya dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada New York ee wadanka Mareykanka halkaas uu kaga qayb galayo shirka qaramada midoobay ayaa la soo sheegay in halkaas uu kula kulmay mas'uuliyiin sirdoon oo ka socda maamulka Yahuuda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in kulamadaasi ahaayeen kuwa qarsoon iyada oo wafdiga madaxweynaha ila ka tirsan qarsoon u soo dusiyeen warbaahinta kaasi oo ay ku sheegeen in madaxweynuhu uu la kulmay sargaalka haysta hay'adda sirdoonka maamulka Israa'iil kaas oo ilaa hadda aanu la ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen hase ahaatee mas'uuliyiin ka tirsan ila Soomaaliya oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in arrintan ka hadlaan hase ahaatee waxay warka ku soo koobeen in madaxweynuhu uu waday la kulanka mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda dalalka caalamka kuwaas oo ku sugan magaalada New York kana qayb galaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay hase yeeshee waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dhameystiran ka bixiyaan madaxda uu la kulmay inay ku jiraan sirdoon ka socda maamulka Israa'iil ugu dambeyntiina magaalada Muqdisho wararka aynu ka helayno waxay sheegayaan in askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya lagu arkayo qaar kamid ah wadooyinka magaalada iyo sidoo kale xaafadaha magaalada lama yaqaan waxyaabaha ciidanka loogu soo daadiyay magaalada qaybo kamid ah dhaqdhaqaaqa ay wadaan hase ahaatee waxa la soo warinayaa inuu jiro khilaaf u dhaxeeya qaar kamid ah saraakiisha laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya ciidamada ayaa la sheegay in ay u kala qaybsameen saraakiisha ishaya kuwaas oo la sheegay inuu ku jiro taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya kuwaas oo ay isku maandhaafeen
howlgalla amniga lagu xaqiijinayo oo ay ka wadeen bilihii u dambeeyay magaalada Muqdisho. ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay howlgalla xilli habeen ah la fulinayo ka sameynayeen degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo oo habeenba degmo ay ciidanka howlgalka ka sameynayeen kuwaas oo ay ku sheegayeen inay gacanta ku soo dhigayeen kooxo burcad ah oo dadka dhibaato u geysata iyo kooxaha ciyaal weerada. inkastoo ciidanka ay ku guuleysteen inay cirib tiraan kooxaha ciyaal weerada, asahaatee waxaa weli taagan saameynta kooxaha burcada ah ee dadka taleefanada ka dhaca xilliyada habeenkii ah. ciidamada ayaa xalay howlgal xoog leh oo ay ka sameeyeen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxay gacanta ugu soo dhigeen koox burcad ah oo la sheegay in dhibaato ay ku hayeen dadka shacabka ah ee ku nool degmadaasi. guud ahaan daawada intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkeennii galabnimo oo idinkaga imaanayay janalka Isha Wararka. daawada haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan nagu soo biiro oo subscribe garee janalkan, warbixinteena loo la garee siina share garee. haddii aad hore noola joogtana fadlan warbixinteena la garee sii share garee si aanu helno saaxiibo idinkoo kala ah mahadsanidin.